tababar kor loogu qaadayo xirfadaha aqooneed ee madaxda gudiyada gabdhaha ee iskuulada iyo hablaha macallimiinta ay ku sugan degmooyinka Dhuusamareeb, Gurceel iyo Matabaan ayaa lagu qabtay degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Tababarkan ayaa waxaa soo qaban qaybshay hay'adda Jasbo waxayna la kaashanaysaa wasaaradda waxbarashada ee maamulka Galmudug. Madaxa hay'adda Jasbo ee gobolada dhexe Xasan Kaafi Cali Xaashi ayaa ugu horeyn halkaasi ka hadlay wuxuuna ka warbixiyay habka tababarkan u socon doono. gabdhaha hore lagu qabtay fayska labaad waayo muhiimadiisu leeyahay waxaan ugu barayaa gabdhaha xirfadaha la xiriira leadership ama xiriirinta iyo danaha gabdhaha wax u qaashka dhan iskuulaadka la xiriira waxaan filayaa macallimiinta gabdhaha ayaa bixi doona tababarka oo khibrad u haysta sidoo kale waxaan mahad celinaynaa maalinka waxbarashada ee degmada oo nagala soo qayb galay iyo maalinka degmada xibno kamid ah barnaamijkaas muhiimadiisa leh tababarkaas in hablaha awood siiyo ah in gabdhii waliba kuwii wax baranaya way iskuulaadka dugsiga sare iyo dugsiga hoose dhexe dhiganayo deegaanka dad aad u muhiimsan isugu yimid meesha casharaas ay qaadayaan kulli waa casharo la xiriira leadership-kaasi. Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay afhayeenka maamulka degmada Gurceel Macallin Qaasin Sheekh Mire wuxuuna gabdhaha kula dardaarmay inay tababarkan ka faa'iideystaan. Markii aad iyo aad ugu faraxsanahay waan soo dhaweynaynaa waan garab taaganahay anigoo ka hadlaya afka maamulka degmada Gurceel gaar ahaan waxaan leenahay meesha aad ka sii wadaan laga sii wado si gaar ah gabdhaha hadda metelaya maamulkan qaybihiisa kala duwan ee leeyo yimid deegaankan waxaan leenahay fariin u baa la diibi doonaa fariinta la diibana waxay u baahan tahay maada qaala aanifan wax la yiraahdo in la dhiheen hadaayi xal laha waa dhibaato waxaa la rabaa wax walba waxa loo waqtiga loo dhumina ama maxaan ku sheegay fursada la siinaa ama wax loo sheegaahu waa adinka waxaana wakiil ka tihiin guruubyo ama maxaan ku sheegay xisbiyaal kooban oo ka soo jeeda iskuulo marka waxa la idin sheegay waxa la rabaa inay idin saameeyaan waxa laga yaabaa wax jirana waaye markii aad noqotaan oo ku noqotaan deegaanadii ama degmooyinka ka timaadeen waa la budda inay inta kulmidaan aad warbixin dhiibtaan marka waxa la rabaa waxa la sheegaya oo la qaadan doonaa inay noqdaan waxaad weeleydaan oo maskax weeleyda iyo qalbi wax weeleyda ay noqoto mid ay ku jirtaa fursadan ay ka faa'iideysataan waxa la rabaa sida ay sheegay way sii socon doonaa tababarku hadda waa fayskii labaad waxa imaanaa fays saddexaad fays afraad iyo mid shanaad cidda had jeer lagu kalsoonaaday ee la soo diraahay iskuulada aad ka timaadeen ha noqoto adinka haddii maanta wixii lagu sheego aad geydo wixiina aad adiga xigmadaadi ku darsatid. Ugu dambeyn waxaa kulanka soo xiray agaasimaha waxbarashada degmada Gurceel Macallin Maxamed Cali Filiin. la yiraahdaa ay Soomaalida ku maahan gabar wax baratay waa bulsho wax baratay maadaama sidaas ay tahay ayagana ay sidaas garashadeedii ay ka soo dhalaaleen ay haddana u istaageen inay fuliyaan barnaamijkaas waan kaga mahad celinaynaa waan rajaynaynaa inaad sii wadi doontiin oo gabdhaha wax badan waxaan dareemaynaa sanadkan arday badan oo wax ka soo bixi jirtaan oo gabdhaha ah ayaa sanadkan secondary ka baxaysa oo jaamacadii aadaya waxaan rabnaa marka maadaama aad dugsigii hoose dhexe sare ka soo saarteen waan rajaynaynaa inay dhici doonto inaad jaamacadii aad qaybtooda ka qaadi doontaan haddii la yidhaahdo sidoo kale waxaan rabnaa ayadana inaan uga mahad celino dhanka tababarada macallimiinta oo ninka la yidhahdo aad iyo aad aan dareemayno macallinku hadduusan nafsadiisu tababar haysanin wuxuu qaban karaa inay iska yihiin waxaan rabnaa ayadana inaad sii laba jibaartiin ayadoo low aan aad u jeclaan lahayn gabdhaha macallimiinta ay aad u yaryihiin inay soo bataan aad u jeclaan lahayn لأنه محاير أنتنا ما تمرك لسكين كاني أو خلاص بالبيت متليسو وحال رواء أنا تكفكرتين أنتنا المعلمين نقد الدور كمان تمشون أو ترجع على قيمس وحلا قيمستين مرة والبرنامج كانوا لسبي ماذا وان كهرنا دائما معلمين نقد مكاننا عقبال بدل يهرت تاجنا وحويان قبليه نفس الدودي إنه يسمى كلية education يسمى أدب دنيين. فرحان أحمد عبدي، جديد عالمي جاي قلمدو كل هذا.